siyaad yunis oo muddo dheer ka ahaa wakaalada biyaha ee Hargeysa maareeye waxaan wax ka weydiinay bal muran maalmihii u dambeeyay ka taagnaa arinta mashruucii xunba weyne iyo bal inuu noo kala cadeeyo mashruuca xunba weyne ee biyo balaarinta Hargeysa iyo mashruuca kale ee soo ka socda dhinaca Geedeeble kadib markii wasiirka biyaha ee Soomaaliland uu sheegay mashruucii xunba weyne uu fashilmay marka waxaan wax ka weydiinay Ibrahim Siyaad bal labada mashruuca xunba weyne ee wasiirka biyuhu sheegay inuu fashilmay iyo mashruucan biyo balaarinta Hargeysa ee ka socda Geedeeble فشرحات كيرسي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمانتنا أدبان إذن سلام يا كلن كنا يعدسينا ها حقوريسيا هاوشوا هاو الحساسية وحنركي السوشيال ميديا هسوقو فافتي وزيرك هذا الكيسي كدب marka mar haddaan muddo dheer joogay wakaalada biyaha xoogaal oo wax badan oo imika laga hadlayo waxaan jeclaysaa inaan wax xogaa tafsiiro ama yar cadeeyo maxay tahay dhibaatada ka taagan mashruuca biyo balaarinta Hargeysa mashruuca xunba weyne mashaariicda kala biyaha dawladda wakaalada biyaha maareeya jooga isaga inuu ka hadlo mashaariicda oo sharxay tahay laakiin haddii ka xoogaal ahaan ka muwaadin Hargeysa degan ahaan badan anigu imika ay u kaliftay inaan ka hadlo marka Hargeysa deesan wada ogsoonahay biyo la'aan ba ka taagnay muddo dheer dhowr 20 sano wadankaanu Soomaaliland qaranka haydba sababtay uga taagnayna kulay cid walba way ogtahay expansion kama magaalada Hargeysa oo aad u faafaysa iyadoo caasimad noqotay iyo dadku aad ugu soo guurayo nasiib wanaag waqtigii xukuumadii Axmed Maxamed Maxamuud Silaani uu hoggaanka hayay wadanka mashaariic fara badan baa biyaha wakaalada biyaha Hargeysa soo maray qaarkood way socdaan qaarkood way dhamaadeen qaarkoodna sidii lagu tala galay umay dhicin marka Hargeysa waxaan oran karnaa si guud markaan soo koobno saddex mashruuc baa ay ugu waaweyn mashruuc waxa la yiraahdaa mashruuca Horahadley Geedeeble Hargeysa waa Horahadley oo ceelal lagu qodayay Geedeeble ilaa Hargeysa oo beeb weyn la soo dhigay mashruucaasi ogaantay deemka magaarihi meehi laakiin si fiican buu socday waxoogaa waxa la mooday inuu waxoogaa dhilay ku yimid laakiin waxaan ku rajo weynahay insha Allah inuu iska dhamaan doono mashruucaasi waa mashruuca ugu weyn ee biyaha Hargeysa inuu rajada weyn ka damacsanahay ilaa hawshiisuna si fiican bay u socotaa mashruuca labaad waa mashruuca la yiraahdo xunba weyne mashruuca xunba weyne wasiirku shalay daro ka hadlay horena in badan baa looga hadlay mashruuci wuxuu ahaa ugu muranka badnaa ugu hawsha badnaa muddada daan xafiiska joognay hawshiisu way taagneed ilaa xukuumadii riyaalana way soo socotay hawshiisu mashruucaasna kulay dhibaatooyinkiisa iyo jaranjarooyinkiisu soo maray wax mashruuca in badan oo aan xilka hayna waan ka hadlay imikana kulay wasiirku ka hadlay bikul ixtiraam mashruucaana sida wasiirku u sheegay ayuu aniga lafteeda waa la qabaa uu yahay marka horena waan u sheegay inta wasiirku sheegay haddii farsamo ahaan tahay sida ceelasha loo qoday hadday biyaha meesha ku jira tahay haddii tahay alaabta meesha lagu riday marka kulli mashruucaasi mashruuc marka horeba shaqeynayo laha uu socday mu ahayn in badan bay muran ka taagnaa xukuumadda lafteeda way ku kala aragti duwaneyd imikana insha Allah waxaan rajeynayaa hadalka wasiirku mar hadduu soo baxay in sixitaankii laga daba tagi doono mashruuca saddexaad waxa mashruuca distribution systemka ee magaalada gudaheeda mashruuca distribution systemku qaybna way bilaabantay qaybtii ugu weyneedna insha Allah way bilaabi doontaa dhawaan sidaan xoogaha ku hayay ama aan xoogaalka u habeynta wakaalada joogay miduu man doonayaan dadka aad ugu iftiimiyo oo mashruuca Geedeeble iyo Horahadley lacagtiisa intaan ogaa waxa bixisay sanduuqa horumarinta Soomaaliland iyo midowga Yurub cid saddexaysa ma jirto SDF iyo EU da ayaa lacagtooda bixiyay oo midna 10 milyan 500 buu bixiyay midna wuxuu bixiyay 15 milyan oo euro waxaan arkay social media iyadoo lacag far badan laga sheekeynayo mashruuca distribution systemka waxay naga caawiyay mashruuca KFW ama bangiga horumarinta oo qaabsan Jarmalka 3 milyan ee barbu ahaa iyo 6 milyan oo bixinayaan shirkadda Coca-Cola International mashruuc walbana cid baa gacanta ku haysa xukuumaddu haba yaraatee wax lacag oo gacanta ku hayso oo maamusha oo leedahay waxana lacaga waxaan arkay in lacag baa la cunay cid lacag cuni kartaa ma jirto lacag inagu ma qabano xukuumadda lacag looma dhiibo shirkadda wax cid baa haysta bangiga KFW isaga lacagtiisa haysta European Unionku iyaga lacagtooda haysta cid baa mashaariicda fulisa cid baa ilaalisa roolka dawladdu wax weyn mashruuca dusha sare ay ka ilaaliso mashruuca xunba weyne sayna loo wada socono waxa maalgelisay Khalifa Foundation ama hay'adda Imaaraadka Carabta oo qaabilsan horumarinta waxaana fulinayso gacanta ku hayay shirkad la yiraahdo Falaax Al-Ahbaabi nin la yiraahdo madax ka yahay oo isla Imaaraadka marka kulli haddaan si yar guud si kooban soo sheego mashaariicda biyuhu saasay ahaayeen qaarkood way socdaan intaan ogahay oo gabagabay ku dhow yihiin qaarkoodna imika bilaamayaan qaarkoodna sida wasiirku sheegay ma jiraan marka dadku hadda jir Hargeysa wax wanaagsan mid u kala cadaadaan
mashruuca ugu weyn ee rajada ugu weyn ee Hargeysa ka damacsan tahay la sugayaa waa mashruuca Geedeeble iyo hore hadli ka imanayay hadduu kan xumba weyn inoo yimaadana wuxuu ahaa faa'iido inagu soo kortay laakiin xumba weyn xitaa hadduu dhamaado biyaha laga sugayay aad bay u koobnaayeen oo way yaraan laakiin mashruuca aynu Hargeysa biyaha ka sugaysaa Hargeysa waa magaalo quraata in loo kala saaro maaha xaafad iyo degmo laakiin Hargeysa rajadeeda iyo mustaqbalkeeda waa mashruuca Geedeeble mashruucaasna si fiican buu socdaa insha Allah markuu dhamaadana isbedel weyn ba ku dhici doona Hargeysa xagga biyaha haddaan su'aasha koowaad qaato mashruuca xumba weyne waxaan malaynayaa saxay xilliga joogtay lacagta ku baxaysay ay ugu talagaleen qoladan Khalifa Foundation intay walaal horta mashruuc xilligan joogay xumba weyne oo la saxay habeerayaatay ma jirto anigu imika qof muwaadin ah oo madax banaan oo reer Hargeysa ahaan baan u hadlayaa xukuumadda kuma jiro waad ogtiin mucaaradna oo aan yacni xukuumadda ciidan ku garbinayo leh waxaasna ma jirto mashruuc xumba weyne la yiraahdo oo xukuumaddii Axmed Siilaayo saxeeday ma jirto mashruuca xumba weyne waxay noo iman jiray nin la yiraahdo Falaax wuxuu oran jiray lacag baan sidaa mashruuca xumba weyne anigoo maaray wakaaladda biyaha Hargeysa waqtiga wasiirkii macdanta iyo biyaha Xuseen Cabdi Ducaale oo imkana jooga laba wasiiro ku kala dambeeyay wasaaradda biyaha intaas guddi baa soo martay oo hawsha loo saaray weynkii oogay aad baa la isku qabsaday waxa la isku haystay hadii jeer wuxuu ahaa war mashruuc baa imaaraadkii carabta nagu caawiyay Soomaha mashruucan way misal lacagtiisu qof ilaa imika sheegi kara mashruuca xumba weyne lacagtii ku baxday waa imisa horta aanu maarayaan hayo ma ogi iyaguna hadday deeshay cidii kale xoogaal hawsha iga hina iyaga way sheegi doonaan laakiin wax intaan ogahay mashruuca cid haysa habeeraatay lacagta ku baxaysay ma jirto cidda fulinaysana waxa ay doon isla ninka Falaax oo ka soo qaatay Khalifa Foundation marka la yiraahdo Falaax oo haynu wax saxnay miiska soo fariiso oo maxay lacagta mashruuca lagu soo Somaliland la siiyay waa imisa maxay dhibaato han kula saxno design-kii sidee wuxuu jiraana waadinkii ogaay hadii jeer rabshad baa ka bilaabmi jirtay oo isaga dhibaato far badan abuur jiray marka si kooban aan u yiraahdo mashruuca xumba weyne lacagta Somaliland lagu caawiyay imaaraad ku caawiyeen anigu ma garanayo anigu Somaliland xukuumaddii waqtiga joogtayna ma ogeyn si kastana waan isku daynay in hawsha gunteeda la gaari kari weyne maraya waxaad inoo kala cadaysaa mashruucan xumba weyne waa mashruuc inta la guda galay oo hawshiisa la bilaabay isagoo dhexda maraya fashilmayba isagoo mashruuc isagoo aan bilaabin fashilmay mashruuca xumba weyne waxay yiraahdeen horta xumba weyne waxay ka mid tahay meelaha biyuhu laga filayo in Hargeysa loo keeni karo biyaha Hargeysa daraasadoodu waxay bilaabantay waqtigii Ingiriiskii Chinese-kii markuu biyaha face-ka hore inoo sameeyay Hargeysa ayuu meelo badan soo maray marka xumba weyne horta asalkeeda waxay ka mid tahay meelaha biyo qabatinada ah ama underground waterku ku jiraan ee Hargeysa mustaqbalka ama imika noqoto mustaqbalka maruu biyo ka iman doona insha Allah sida Ilaahay ka rajeeyo marka mashruucaasi wuxuu qaybsamayaa laba face-kiisii koobaad wuxuu ahaa ceelasha in la qodo face-kiisa labaadna wuxuu ahaa baraagihii iyo dhuumihii Hargeysa biyaha keenay face-kii koobaad markii la yiri hal la bilaabo ninka Falaax al-Ahbaabi la yiraahdo mashruuci soo qaatay mashruucaasan wadaayoon dhisaya face-kii koobaad waxa la isku qabsaday ceelasha sida loo qodayo markiiba anagu waxaan su'aal ka keenay war ceelashan la qodaya ceelashii biyaha Hargeysa keeni lahaa maaha hadday noqoto dherarka la qoday hadday noqoto keesinka lagu riday hadday noqoto bamka lagu riday hadday noqoto intay isku jiraan hadday noqoto halkii ka qodayihiin dhowr iyo 10 ceel la sheego 8 ama 9 kamid doox bartankiisa ka qodayin adduunyada doox bartankiisa imika Geedeeble hada aragtayna dhowr iyo 10 ceel ku yaal laba ceel oo qudaato doox bartankiisa qodano oo labada ugu hawsha badan iyo dhibaatada badan hadii jiro way dooxii uu soo rogmanaya dhibaato badan hadii jir geysanaya marka markii koobaad ee dhibaatadu waxay abuurantay ceelasha sidan yaan loo qodin laga daayo waan ka joojinaa shaqada waxaan ku nir ceelashaas ceelasha Hargeysa aan ficil ahaan ma ahay kada markaas Hargeysa crisis-keedu inagu abuurnay mar alla markii shaqadii ninkii laga joojiyay ay hawshii si kala loo dhigay oo la yiraahdo cid gaar ah wax loo diidayaa ama xaafad gaar ah wax loo diidayaa markaas dhibaato halka ka bilaabantay marka uu dhameeyay ceelashii markii uu dhameeyay wasiirkii macdanta iyo biyaha waqtigaas oo Xuseena iyo Falaax waxay kala saxeeyeen heshiis waanu haynaa meel wakaaladda iyo wasaaradda uu yaala cid baata waa la siin karaa heshiiskaas wuxuu dhigay mashruuca face-ka koobaad ceelasha la qoday way isku wada dhow yihiin qalabka lagu riday qalabkii saxda ah Hargeysa aan ficil ahaan maaha meesha wax lagu baahan face-ka koobaad in lagu noqdo wuxuu saxay face-ka labaad intaan la bilaabin inuu hawsha saxayo ceelashana ceelal cusub uu ku darayo ceelasha la kala fogeynayo bamkan iyo raisin beebka iyo casingka ku jirina uu bedelayo ilaa uu hawsha dhameeyana aanay wax dama qabanay dhowr iyo 10 qodob ay kala saxdeen labada mas'uul
dee dhowr iyo tobankii qodob isagoo halkaa taagan tahoo ayuu mar labaad yidhi mashruucii baan waxaan bilaabaynaa baabkii iyo baraagihii markaa dhibaatada ugu weyn waxay ahayd waar mashruucii fayskii hore qaladaad fara badan baa ka jiray markii la koowaada la bilaabayna waa adigii diiday inaad saxdo heshiiskeedna wuxuu ahaa qodob qayb labaad inaan la bilaabin ilaa qaybta hore la saxee qaybta hore horta sax markaa had iyo jeer dhibaatadu halkaas ka iman jirtay xaggee la mariyaa biyaha meel la mariyo horta ka muhiimsanaa in la ogaado basinka biyaha ku jira ma ceelashaa loo qoday si sax ma loo qoday marka had iyo jeer dhibaatadu halkaas ka iman jirtay marka hadda weedad ogeynanoo dee kulley imika waxba ku celcelin maaye waa la hayaa kiliba fara badan oo kaga hadalay dee markaa hawshaas sidaa ahayd marka mashruucan imaaraadku bixiyey Soomaaliya lacagta ku baxaysay gacanta looma soo gelin may hay'ad dhaxaysa wadada dee kulley horta wada ogtiina mashaariicdoo dhan mashaariicdu say u dhan yihiin ama ha noqoto kaa geeddeebla ama ha noqoto kan distributionka dowladda Soomaaliland lacag loo dhiibay haba yaraatee ma jirto lacagta midowga Yurub tusaale wax kugu filan midowga Yurub lacagtoodu iyaga haya sanduuqa midowga Yurub ku jirta waxay u dhiban hay'ad UN Habitat la yiraahdo oo mashruuca maamusha marba faces bay u sii daayaan hay'adda UN Habitat la yiraahdo qandaraasay siiso shirkada siisay shirkadaasna waxa ay qabato hadday maanta 5 mitir oo beeba dhigto 5 mitir beebka ay tiraa 5 mitir baan ayaan dhigay waa laga jeegaray markaas loo sii daayaa marka haba yaraatee horta mashaariic oo dhan lacag dowladda Soomaaliland gacanteeda soo gashaa ma jirto oo la yiraahdo lacag baa la cunay anigu mana qabo mashaariicda dee kolley mashaariicda ay bixiyaan wadamadan reer galbeedka ama badan ka noqoto ama hay'adaha waaweyn ha noqotee iyo mashaariicda carabtu bixiyaa way kala duwan marka mashaariicda reer galbeedku bixiyaan ama KFW ha noqoto ama SDF ha noqoto ama European Union ha noqotee ama Coca-Cola shirkad bareefada ha noqotee wuxuu dariiq u leeyahay laakiin mashruuca yani imaaraadku bixiyay inagu imaaraadka Khalifa Foundation waxay yiraahdeen biyanu hargeysa oo sameeyaan xubuna ka soo qaadna shirkad falaax la yiraahdo